xafladan xil wareejinta ah oo ka dhacday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka labada wasiir ee xilka ku kala wareegayay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada haddana ah wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ugu horeyn munaasabadda xil wareejinta ah ka hadlay ayaa sharaxay wixii uu qabsoomay intii uu xilkaasi hayay wuxuuna dhinaca kale wasiirka cusub kula dardaarmay in hawsha halkeeda uu ka sii wado waxaan rabaa inaan ku kala saafo ama dhambalo bal qaybaha kala duwan ee shaqo ee wasaaraddan ay qabato waxaan rabaa inaan 4-3 kugu soo koobo mandateku aad bay u ballaaran tahay laakiin meelaha aan jeclaan lahaa inaad focus ka saarto ama bariyahan aanu gacanta ku haynay ugu horeyn sida la wada ogsoon yahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay mas'uul ka tahay dib u yagleelka hay'adaha dawladda iyo waxa ka qabashada shaqaalaha rayidka maamulka iyo maareyntooda halka haddii aan kaaga bilaabo arrimaha public administration la yiraahdo ama civil service reform wax fara badan baanu ka qabanay waxana waa dhiman yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya mudane Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa tilmaamay in ay shaqo badan u taalo isla markaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan uga shaqeyn doona sidii ay u gaari lahaayeen hadafka horumarineed oo ay tiigsanayaan mas'uuliyadda la saaray culeyskeeda waa dareemaya haddii ilaahay anoo tala saartay iyo anoo haysta saaxiibo iyo idinka shaqaalaha ay dhammaanteen hadafka iyo ulajeedada wasaaraddan waa gaarin haddii ilaahay marka waxaan rajeyn doonaa wada shaqeyn wanaagsan waxaan rabaa shaqaalaha inaan si gooni ula hadlo shaqaalaha wasaaraddan shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada qof kasta oo wasaaraddan ka shaqeeya anigu maanta sida wasiirkii hore idin sheegay shakhsiyan ku cusub ayaan ahay sidaas laaligeed qof walba page cusub macnaha buugaas cusub wuxuu ku qoran yahay baa ii tahay aniga dhammaantiina waxaan rabaa saas oo kale aan kuwada shaqeey qof walba wuxuu pagegaas ku qorto baan kula dhaqmaya haddii ilaahay waxaan idinka rajeyn doonaa marka inaa si niyad samidaas kula shaqeeysan wasiirkii hore ana aad igula shaqeyn doontaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa amaanay shaqadii wanaagsaneed ee uu soo qabtay wasiirkii hore wuxuuna dhinaca kale wasiirka cusub kula dardaarmay inuu si hufan u guto waajibaadka loo idmaday wasiir ku soo dhawow wasaarad ballaaran baad ayaad xilkeedii maanta la wareegaysaa oo aan ku kalsoonahay hubana madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ku kalsoon yihiin in aad meel fiican gaarsiin doonto dardar gelin doonto aynu u soo wada jeedsan doono dib u dhiska qaranka iyo taabagelintiisa iyo in qarankani cagihiisa isku taago dal kamida dunida sidoo awalbana ahaan jiray magaciisa sumcaddii uu lahaabana leh waxa dhaxlaysaa shaqaale laf dhabar ah oo way aragnimo 40 ama 50 sano u dambeeyay u leh siyaasadda shaqaalaha arrimaha bulshada iyo shaqo qorista marka waa ku hambalyeynaya guul baan leeyahay waxa kale oo hambalyeynaya wasiir Saalax Axmed Jaamac xildhibaan ah Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho